halkan waa galbeedka qaaradda Afrika waa wadanka Ghana oo u dhaxeeya Nigeria iyo Ivory Coast waxaa ku nool ku dhawaad 30 milyan oo ruux qiyaasihii u dambeeyay ee laga sameeyay halkaasi dadka tiradaasi ah waa ay ku kala duwan yihiin xagga diimaha ay kala haystaan iyo caadooyinka soo jireenka u ah ee ay ku dhaqmaan bulsho kasta oo deegaan ku nool waxa ay haysataa dhaqan iyo caado u gaar ah dadka intooda badan waxa ay rumaysan yihiin diinta Masiixiyadda kuwaas oo lagu qiyaaso 71% tirada muslimiinta waxa lagu sheegaa 23.6% tirada soo hartayna waa inta aaminsan diimaha kale gaar ahaanna diimaha maxalliga ah muddooyinkii ugu dambeeyay haddii aad si joogto ah u adeegsanaysay baraha bulshada waxaan qiyaasayaa inaad aragtay qayb yar oo muuqaal ah oo ku saabsan rag niikinaya ama dhaansi ciyaaraya ayagoo oo xambaarsan naxash uu meyd ku jiro muuqaalkaasi waxa uu aad u soo shacbaxay xilligii uu darnaa faafitaanka iyo saamaynta koronaha sidaas darteed kooxdaasi meydka u ciyaarta ayaa muuqaalkooda iyo sheekadoodaba caan baxday waqtigaas oo meelaha lagu faafiyeyna ay ugu badnayd TikTok oo dad badanna ay u soo qaateen si qaraaxo ama shactira ah laakiin waa arrin ka weyn qaraaxo iyo madadaalo intii aan isla naqaanay ah haddaba maxaad ka ogtahay dhaqanka ku saabsan in meydka loo heeso isla markaana loo qoob ciyaaro sidee ayay ku soo bilaabatay ujeedkuse muxuu yahay warbixintan xiisaha leh ayaanu ku soo qaadanaynaa ee nala soco adiga oo mahadsan intaanan bilaabin waxaan kaa codsanaynaa inaad muuqaalkan like saartid adiga oo mahadsan si aanu u qiimeeyno ka helitaanka warbixinada noocan ah haa waxaan ahay ninka ugu caansan dhinaca qoobka ciyaarka lambarka koowaad ayaan ka ahay kuwa ku qoob ciyaara naxashka caalamka oo dhan muuqaalka baraha bulshada dhex wareegayay muddooyinkii ugu dambeeyay ma ahan filim la jilay ama musalsal ay diyaariyeen koox majaajilistayaal ah laakiin waa arrin dhab ah oo salka ku haysa dhaqan ay leeyihiin bulsho ka mid ah bulshooyinka Afrika wadanka Ghana ee galbeedka qaaradda Afrika waxaa ka jira dhaqan yaab badan oo ku saabsan in meydka marka loo diyaarinayo in la aaso in xilligaasi loo heeso music iyo gurbaana loo tumo isla markaana ay niikiyaan ama qoob ciyaaraan dadka qaraabada iyo asxaabta la ahaa meydka dhaqankaasi waqti badan ayuu ka jiray meelo ka mid ah wadanka Ghana sidaas darteed waxaa halkaasi ka ifbaxay koox gaar ah oo ku shaqaysata in ay u heesto u ciyaarto oo music u garaacdo meydka si hawsha looga fududeeyo dadka qaraabada iyo asxaabta la ahaa ee ay ahayd in ay meydka u ciyaaraan si la mid ah sida arooska loogu soo kireeyo koox u heesta oo u ciyaarta ayaa meydkana loogu soo kireeyaa koox u heesta oo u ciyaarta marka la joogo wadanka Ghana waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso maxaa marka horeba keenay in qof dhintay loo heeso oo loo qoob ciyaaro halkii laga murugoon lahaa dhimashadiisa waa sax waa waxay ka siman yihiin guud ahaan bulshooyinka kale ee caalamka in loo murugoodo oo tiiraanyo loo muujiyo marka uu qofku geeriyoodo laakiin bulshadan ku nool wadanka Ghana taas beddelkeed waxa ay rumaysan yihiin in meydka oo la ixtiraamayo la muujiyo farxad iyo reyn qofka dhintay waxaa loo rajaynayaa nolol cusub kana qurux iyo raaxo badan midii uu adduunka ku haystay sidaas darteed waxa ay aaminsan yihiin in qofkaasi dhimashadiisa kadib la muujiyo farxad iyo damaashaad halkii laga murugoon lahaa waa dhaqan cajiib ah muuqaalka ku saabsan ragga meydka u ciyaara oo baraha bulshada lagu faafiyey wuxuu noqday muuqaalkii ugu daawashada badnaa sanadkii 2020 muddo 3 saac gudahood oo YouTube-ka la soo geliyay waxa la daawaday 2.8 milyan oo jeer wuxuu helay 198,000 oo falcelin ah iyada oo 45,000 oo aragti ahna laga dhiibtay kaliya muddadaasi 3 saacadood ahaa 6 bilood kadib muuqaalku waxa uu helay 121 milyan oo daawasho ah dadka badankood waxay uga falcelinayeen si qosol iyo madadaalo leh Emmanuel Duku waa agaasimaha kooxda meydka u qoob ciyaarta ee wadanka Ghana waa nin ku caan baxay hawshan dadka qaar xirfadiisa ay kula kaftamaan
dadku waxay ii arkaan sida malakulmood inaan ahay waxay igu la kaftamaan adigana marka aad dhimatid waa lagugu dul niikin doonaa dhaqanka ku saabsan in meydka oo naxashka ku jira loo heeso waxa ay taariikhyahanadu tilmaamaan in uu soo bilowday qarnigii 15aad halka kuwa kalena ay tilmaamayaan in uu ahaa qarnigii 18aad waxaana la sheegaa in ay bilaabeen dad muhaajiriin ahaa oo ka hayaamay waddanka Itoobiya oo gaaray dalka Ghana kooxdan meydka u haysta una ciyaarta ayaa lagu soo kireystaa lacag $172 u dhiganta marka loo eego lacagta Ghana lacagtaas wax weyn oo qaali ah kama ahan Ghanaiska xaggooda marka meydka arrimihiisa lagu furdaaminayo kooxdu in ay haysto oo ciyaarto kaliya ma aha xitaa iyaga ayaa soo qaabeeya naxashka meydka lagu qaadayo naxashka qaabku uu ekaanayo waxa ay ku xiran tahay xirfadda uu ka shaqayn jiray qofka geeriyooday tusaale haddii uu ahaa qof diyaarad ka shaqeeya naxashkiisa waxaa loo ekaysiinayaa diyaarad haddii uu ka shaqayn jiray beeraha kakaawga naxashkiisa waxaa loo qaabaynayaa sida uu u eg yahay miraha kakaawga kadib saacado badan ayaa loo heesayaa oo loo ciyaarayaa dawladda Ghana waa dawlad aan dadka ku faragelin dhaqamada iyo caadooyinka ay aaminsan yihiin hadiiba aan dhaqamadaas dad kale wax loogu dhimayn halkan waa xafiiska laga maamulo kooxda meydka u haysta waxa u yaala labiska iyo agabka loogu talagalay marka meydka loo dabaaldegayo waxaan noo yaala dhar tiro badan waxaan ugu talagalnay in aan noqono dadka ka soocan waxaan ku labisanaynaa kaba ku haboon dharka aan xiranayno sababta aad u aragteen muuqaalada ku baahay baraha bulshada waa inaan nahay dad ka duwan inta kale aad ayaan u tababaranay waxaan nahay dad xirfadooda jecel oo aad ugu qanacsan bulshadan in meydka loo baroorto oo loo tiiraanyoodo waxay u arkaan xadgudub loo geysanayo qofka dhintay taas beddelkeedna in loo heeso oo loo ciyaaro ayay u arkaan qadarin iyo xushmad loo muujiyay meydka waxay ku leeyihiin wax wanaagsan ayaan u aragnaa in murugada lagu bedelo farxad maxaan u murugoonaynaa annaga oo heli karna in aanu farxno aniga ahaan waxaan aaminsanahay in qof kasta uu leeyahay hibo u gaar ah waa lagama maarmaan in hibadaada aad muujiso aniga hibadaydu waa qoobka ciyaarka sideedaba in la qoob ciyaaro ay meelaha qaar dhaqan xumo ka tahay laakiin halkan waa waxa ugu weyn ee qof la jecel yahay oo geeriyooday lagu maamuuso waa dhaqan la yaab leh Ghana marka la joogo kani waa mid kamid ah siraha qarsoon waxaan qaadanaa ka hor marka aan qoob ciyaar rabno inaan ciyaarno kani daawo ayuu noo yahay waxa ku jira sanjabiil aad ayuuna u dhadhamayaa fadlan haddii ay warbixintan ku cajibisay haylaawin in aad muuqaalka like saartid adiga oo mahadsan nala wadaag aragtidaadu waa muhiim inta aynu ku wada kulmi doonno warbixin kale oo tan la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo